الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوسف كادوانسان ولحلة ميديا كاسوان كسو بندقنا برنامجيو si weyn u taabanaya nolosha iyo arrimaha bulshada. Haddaba daawadayaal caawa waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenan maadaama ay nagu soo fool leedahay doorashadii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka. Caawa waxaan isu istaagi doonaa baarlamaanka iyo shaqooyinka uu qabto innagoo qodobayn doona insha Allahu tacaala daawasho wanaagsan. Haddaba daawadayaal ereyga parliament waa erey asal ahaan kasoo jeeda luqadda Faransiiska macnaheeduna yahay hadal ama dood taasoo waqtigan casriga loo isticmaalo sharci dejiye. Haddaba guud ahaan baarlamaanka ka jira dunidu waa iskaga dhow yihiin xagga shaqooyinka ay qabtaan. guud ahaana shaqada loo egmada baarlamaanku waxa uu ka mid yahay saddexda waaxood ee loo qaybiyey hannaanka dowladda waxaana noqonayaa ka saddexaad marka laga tago labada qaybood oo ah fulin. Haddaba daawada markaad xulanayso xubin baarlamaan waxaad ogsoonaatay xubintaas inay tahay xubin qiimo weyn ugu fadhida shaqada iyo dhaqdhaqaaqa ka socda dalka. Haddaba shaqada uu baarlamaanku qabto waxaa lagu soo koobay shantan qaybood. Qaybta koowaad baarlamaanku waxa uu qabtaa kormeer iyo toosin shaqada ay xukuumaddu gacanta ku hayso iyagoo isu qaybinaya guddiyo iyaga dhexdoodu ayaa guddi kastaaba waxa uu qaabilsan yahay hawl iyo shaqo loo egmaday oo u gaar ah. Shaqada labaad ee uu qabto waxa weeye ansixinta barnaamijyada xukuumadda oo ay ku jirto miisaaniyadda dalku. shaqada saddexaad ee uu qabto baarlamaanku samaynta sharciga iyo wax ka beddelka sharciyadaasi oo uu ka mid yahay dastuurka qaranku leeyahay. Sidoo kale baarlamaanku maadaama uu yahay golaha matala shacabka iyo deegaanada laga soo doortay xildhibaan kasta waxa mas'uuliyad ka saaran tahay dadkii iyo shacabkii uu matalayay ee deegaan doorashadiisa. Hadda daawada waxaan filayaa inuusan dah ka saareen shaqada uu qabto baarlamaanku balse muhiimaddu waxay tahay shaqada baaxadda leh dadkii fulin lahaa ama hirgelin lahaa in uu yahay qofka soo dooranaya qof yaqaana shaqada qofka uu dooranayo kartidiisa iyo waxqabadkiisa daacadnimadiisa iyo inuu yahay qof aqoon u leh shaqada uu qabanayo. Muwaadin codkaaga mas'uuliyad ayaa ka saaran waayo waxaad xulaysaa qofkii shaqooyinka qarankaagu u baahan yahay kala socodsiin lahaa. taa macnaheedu ma aha inaad codkaaga ku taageerto qof aan awood u lahayn inuu shaqada qabto. tusaale ahaan hadda Somaliland baarlamaanka fadhiya waxaa la doortay 2005 haatan laga joogo muddo 15 sannadood ah. celcelis ahaan shaqada ay qabteen haddii qiimeyn gaar ah lagu sameeyo ma dhamma 5 sannadood. taana sababteeda waxa leh codbixiyaashii soo doortay kuwaas oo aan u eegin ama laga yaabo inaysan fahamsanaynba macnaha doorasho macnaheedu ma aha inaad shaqo geyso qof kula hayba balse doorasho macnaheedu waxa weeye inaad qarankaaga u xusho ciddii baahiyaha iyo waxa aad tabayso aad ku aamini lahayd inay ka saarto qaranka. inaad u xusho qof ku matala danta iyo rabitaanka aad adigu leedahay horumariya deegaankaaga iyo dalkaaga fahansan shaqada loo igmaday garanaya waajibaadka saaran. tusaale ahaan Abubakar Shadiiq ayaa waxa la weydiiyey weligaa ma jeclaatay inaad noqoto qof mas'uul ah ama hogaamiye ah. wuxuu ku jawaabay weligay hal mar ayaa niyada geliyey inaan xil u qabto ummadda islaamka markaasi oo ahayd inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waxaa la dooranayaa qof nebiga iyo ilaahayba raalli ka yihiin. waanaad garan kartaa qof allihii abuurtay iyo nebigiisuba ay raalli ka yihiin maqaamka iyo darajada uu taagan yahay. sababtoo ah Abubakar waxa uu fahansanaa macnaha ay mas'uuliyaddu leedahay. qofka codka bixinaya waa mas'uul oo codkiisa ayuu mas'uul ka yahay. kan loo codeeyeyna waa mas'uul oo waxa uu mas'uul ka yahay wixii loogu codeeyey. balse mushkiladda jirta ayaa waxay tahay ka codeynayana ma fahansana waxa uu u codeynayo kan loo codeeyeyna ma fahansana waxa uu doonayo in loogu codeeyo iyo miisaanka ay leedahay mas'uuliyadda uu qaadaya. taasina waata keentay in muddo 15 sannadood ah ay fadhiyaan baarlamaanka hadda jira. waxaan filayaa hadda inay tahay fursad dahabi ah oo 15 sano kadib hortaalla dhammaan shacabka Somaliland. muwaadin maanta ayay ku hortaallaa fursadda ka faa'iideyso dooro dad aad bari hakaha ku tiraahdo kuwaasoo iyaguna leh aqoontii iyo aragtidii ay kugu hogaamin lahaayeen. isbeddelku wuxuu imanayaa markaad adigu isbeddesho laakiin ma jiro madaxweyne isbeddel samayn kara haddii aanad adiguba isbeddelin oo aysan isbeddelin aragtida aad wax ku dooranayso iyo xataa waxa aad doonaysaa waa inay ku caddaadaan. taasoo berri kugu dhiirigelin doonta mas'uulkaaga inaad la xisaabtanto weydiiso wixii uu kuu ballan qaaday haddii uu fuliyey ballanqaadkii ugu mahadnaq haddii uusan fulinna ha kuu ahaado qof mas'uuliyad darro muujiyey. haddaba daawadayaal caawa barnaamijkeenan intaas ayaan ku saafmeeri doonaa. dhammaanteenna waxay mas'uuliyad naga saaran tahay qarankeena. allahayna waafajiyo wanaaga allana haynoo dooro isaga ayaa wax dooree mas'uuliyiin shaqada loo igmaday u guta sida ay u ballan qaadeen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.